xiriirka tenniska dheer ayaa muddo 7 sano gudaheeda waxa uu markaasi ku soo saaray ciyaartoy fara badan oo tayo iyo sidoo kale horumar ka sameeyay ciyaaraha tenniska. waxa ay ka qayb galeen tartamo kala duwan oo ay markaasi qayb ka yihiin qaaradda Afrika iyo tartamo kale oo hadda qorsheysan ay ka qayb gali doonaan xiriirka tenniska dheer iyo ciyaartoydooda. sidoo kale waxaa la soo gabagabeeyay heerar kala duwan ee horyaalka tenniska dheer iyo sidoo kale ciyaartoy cusub oo hadda lagu wado diyaarin kuwaas oo ay ka qayb gali doonaan tartamo caalami ah kuwaas oo ka dhici doona gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale tartamada caalamka ee ciyaaraha tenniska. xiriirka tenniska dheer ayaa qorsheynaya inuu markaasi ka qayb galo tartamo kala duwan oo markaasi ay noqon doonto ciyaaraha Olombikada ee ciyaaraha tenniska lagu ciyaaro iyo ciyaaro kale oo xamaasad leh ay ka qayb gali doonaan iyo tartamo kala duwan. waxaa hadda la diyaarinayaa ciyaartoy markaasi kala duwan iyagoo isku jira gabdho iyo wiilal waxaana ay maalin walba tababar ay ku sameeyaan degmada Shibis. tababarka waxaa si joogto u bixiya macallimiin markaasi heerkooda ugu sareeya ee loo soo diyaariyay inay soo saaraan ciyaartoy fara badan. horena waxay u soo saareen ciyaaryahano waaweyn ee taariikh ka sameeyay ciyaaraha tenniska dheer qaybihiisa kala duwan oo markaasi heerarka uu soo maray. ciyaartoyda sida joogtada ugu qayb gala ayaa inta badan waxay markaasi isku diyaariyeen horyaalka qaybihiisa kala duwan iyagoona hadda qaybo kale ay diyaar garow xoogan ugu jiraan inay soo saaraan ciyaartoy kale. sidoo kale ciyaartoydii hore tababarka loo soo siiyay ayaa waxa ay ka faa'iideysteen tababarka iyagoona hadda qaarkood ay yihiin macallimiin iyaga tababaro bixiyo kuwaas oo isku diyaarinaya inay soo saaraan ciyaartoy aad u fara badan oo tayo leh inay kaga qayb galaan tartamada idil.